مليوني أنا waxaan ku baahanahay maanta ka bilaabata laba habrood isla nahay anaba adiga kulaba ku imaan tigidan ku soo goosana oo facil iska qaraacno aan diyaar u ahay habariyay cajuusada kilkilaa weyn dagaal aad u qaraar oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo afka ah ayaa waxa uu ka dhex qarxay gabadha TikTok caanka ka ah ee lagu magacaabo Samiixa Qaliil iyo Maama Malyuun oo iyana si aadan looga garanayo baraha bulshada waqtiga la taagan yahay laga bilaabo waxaan nahay laba habrood haddaad wax isku hayso ii sheeg halka aad joogto waxaan u baahanahay one on one in la isku keenbalamiyo sidaa waxaa leh Samiixa Qaliil oo gantaal jug ah soo riday balse Maama Malyuun oo loo yaqaano bum haddana bum ayaa tiri waxaan cunaya waa ugaali ee isoo adkee dagaalka Samiixa Qaliil iyo Maama Malyuun waxa uu marayaa meeshii ugu xumeed xaalku in afka la iska weeraro waa uu ka sii gudbayaa waxaana uu ku sii siqayaa in si toos ah isku garaafeeyaan haddaba maxaad kala socotaa dagaalka labadan shakhsi ee baraha bulshada sida aadka saacadihii ugu dambeeyay looga hadalhayo qaar ka mid ah shakhsiyaad baraha bulshada caanka ah oo xiisadan inay dejiyaan isku dayaya warbixin xasaasi ah ayaan muuqaalkeennan idinkugu hayaa iyo gantaalihii ugu dambeeyay ee afka ah ee labada dhinac isku adeegsanayaan haddaba intaan u gudagelin warbixinteennan muuqaalka like sar oo saaxiibadaada u sheer garee aragtidaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhowaada boggeenna Facebook page ee Ducaysana Media waana alaaba idinkugu soo gudbinno warbixinada xiisaha badan ee markaasi taagan oo aan isleenahay bulshada waad la wadaagi karaysaan saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada qaasatan TikTok waxaa ka socda gantaalaha ridada dheer ee afka ah dagaalka oo aad u qaraar isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo afka ah ayaa waxa uu ka dhex qarxay gabadha TikTok caanka ka ah ee lagu magacaabo Samiixa Qaliil iyo Maama Malyuun oo iyana si aadan looga garanayo baraha bulshada arrinkan ayaana salka ku haya oo ka bilowday arrimo qabiil oo markii ugu horreysay la arkay iyadoo ka hadlaysa Maama Malyuun isla markaana ay dhaleeceen iyo waxyaabo kale dusha ay uga tuurtay intaan xaalku halkan gaarin Samiixa Qaliil sidaana ay ku xanaaqday Samiixa waqtiga la taagan yahay laga bilaabo waxaan nahay laba habrood haddaad wax isku hayso ii sheeg halkii aad joogto waxaan u baahanahay one on one in la isku keenbalamiyo sidaa waxaa leh Samiixa Qaliil oo gantaal jug ah ku riday Maama Malyuun مليوني أنا waxaan ku baahanahay maanta ka bilaabata laba habrood isla nahay anaba adiga kulaba maanta ka bilaabata ma fahantay ku soo goosana oo facil iska qaraacno aan diyaar u ahay habariyay cajuusada kilkilaa weyn waxa aad sheegayso dhan adan inaan ku geesta kale Maama Malyuun oo iyana dhankeeda afka furatay oo ka hadashay arrimo kala duwan ayaa karbaastay Samiixa waxa inay tiri waxaan cunaya waa ugaali ee isi soo adkay qof yahay وقال صبح مليون وقصص على ayadi baa cunaya wala dhacaya ogaali halka ku jooji hooyada sariirtay ka dhimatay baa dhuqdaada lagu dhuuqaa ka sheeke hooyada sariirtay ka dhimatay xaalku waa mid allow sahal ah dagaalka Samiixa Qaliil iyo Maama Malyuun waxa uu marayaa meeshii ugu xumeed xaalku in afka la iska weeraro waa uu ka sii gudbayaa waxaana uu ku sii siqayaa in si toos ah isku garaafeeyaan shakhsiyaadka qaar ee dagaalkan sidoo kale lagu soo lifaaqayo waxaa ka mid ah Drisle oo lagu xanto inuu xiriir wadaag la yahay Samiixa walow ilaa iyo haatan arrinkan uusan soo dhex galin haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato boggeenna Facebook page ee Ducaysana Media follow dheh oo ka mid noqo saaxiibada boggeenna ku xidhan muuqaalka like garee oo saaxiibadaada u sheer garee tan iyo kulanti dambe nabadgelyo